ku dhawaad 200 oo askari oo ah ciidanka booliska gaarka u tababaran ee haramcad loo yaqaano waxaa laga soo daadguray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxaana loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha dhinaca magaalada Muqdisho. ciidamadan ayaa waxaa Dhuusamareeb ka soo qaaday 2 diyaaradood oo laga diray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo sii qaaday xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo u socday magaalada Dhuusamareeb. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dalbaday in ciidankaasi laga saaro magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirka biri ka furmi doona xarunta dowlad goboleedka Galmudug. ciidamadan ayaa waxaa Dhuusamareeb la geeyay markii uu dagaalka dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee looga awood badiyay magaalada Dhuusamareeb lagana saaray waxaana wixii xilliga ka dambeeyay ku sugnaayeen ciidanka xarumo gaar ah iyo gudaha magaalada Dhuusamareeb. ciidanka haramcad oo u shaqeeya qaab boolis ah isla markaana aan si toos ah u istagin taliska booliska Soomaaliya waxaa tababartay dowladda Turkiga waxaana lagu tababaray xeerada Turkisom oo ay gacanta ku hayaan macallimiinta iyo saraakiisha dalka Turkiga ka socda. ciidanka amniga Puntland ee BSF-ta iyo ciidanka commandoska danab ayaa saldhigyadooda gaalkacyo ka soo safray waxaana ay gaareen magaalada Dhuusamareeb waxaana la socday mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. waxay hordhac u yihiin wafdiga Saciid Cabdullaahi Dani oo la sheegay in beri waa hore ama xilliga hore ay tegi doonaan magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirka halka ka dhacaya. ciidamadan oo saldhig weyn ku lahaa magaalada Gaalkacyo waa Danabe iyo ciidanka gaarka madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ayaa safar dhulka ku tagay magaalada Dhuusamareeb. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa diyaarad gaar ah oo ah nooca qaramada midoobay isticmaalaan ee loo yaqaan helicopterka waxa uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb waxaana garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu kamid yahay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha martida loo yahay. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole ayaa soo dhaweynta ka qayb galay. ciidamo ku hubeysan 4 gaari kuwa dagaalka ah oo ilaalo u ah madaxweynaha Hirshabelle waxay ka amabaxeen magaalada Beledweyne waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug. ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaa kaliya ku sugan marka la eego madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxaana beri la filayaa xilli hore inay tagaan madaxweynayaasha Puntland Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uu sheegay in la diyaariyay dhammaan gaadiidka iyo goobaha lagu talagalay in mas'uuliyiintan ay degaan. dhanka kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb waxa ay ka raaceen diyaarad gaar ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa u muuqda in sare loo qaaday waxaana gudaha magaalada lagu dhex arkayaa ciidan isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidankii hore ugu sugnaa magaalada Dhuusamareeb. garoonka diyaaradaha magaalada waxaa ku sugan ciidan ka tirsan qaybta 12aad kuwa militariga Soomaaliya booliska ee hore ugu sugnaa magaalada iyo askar kale oo dhawaan loo tababaray dowlad goboleedka Galmudug.